nolosha iyo waqtigu waa labada bari ee dunida ugu wanaagsan. noloshu waxayna bartaa adeegsiga wanaagsan ee waqtiga, waqtiguna wuxuuna baraa qiimaynta ay noloshu leedahay. waxaa jira tuugaan ayna qaban karin, kuwaasi waa kuwa xada waqtigooda. marnaba ha ka tanaasulin mabdaa'yadaada, xitaa haddii ay hogaaminayaan waqti dhow xaalad adag. waqtiga ha iskaga lugin garaacista gidaar adigoo filaya inuu isku bedelo albaab. ilaa aad naftaada qiimaysid ma qiimayn doonti waqtigaaga. ilaa aad waqtigaaga qiimaysidna waxama kama samayn doontid noloshaada. markaad cafinayso qof waxba kama bedeli doonto imaanshiyahaagu, laakiin hubaal waxaad wax ka bedelaysaa mustaqbalkaaga. had iyo jeer waxa ay dhahaan waqtiga ayaa wax ka bedela xaaladda taagan, laakiin dhab ahaantii adiga ayay tahay inaad wax ka bedesho waqtiga. haddii aanad hoggaanka u qaban waqtigaaga, waxaa suurtagal ah inaad addoon noqotid dadka ayagu horay hoggaanka ugu qabtay waqtigooda. waqtigu waa hantida keliya aadamahoo dhan ay ka siman yihiin, haddana waa waxa kaliyate ee aanay ka baaqsan inay dhumiyaan. ka adkow waqtiga, waxaad ka adkaan doontaa noloshaada. adigoon ugu horraynta yoolkaaga si cad aan u qeexi karin, waa waxaan suurtagal ahayn inaad qorshaha diiradda saartay si aad u fulisid. dadka dunida ku nool saacadaha maalintii waxay u kala adeegsadaan si kala gedisan, balse sidaad waqtigaaga u adeegsataa waxay ka turjumaysaa tayadaada nololeed. waxa ay tahay inaynu qabanno waa go'aanka gaarista waxaynu samayn lahayn waqtigu eebba weynana siiyey. waqtigu wuxuu noqon karaa cadowgaaga ama saaxiibkaaga. waxaan waqti badan daraasayay dadka sababa awgood. inaguma fiicna inaynu aragno waxyaabaha nagu yaala ama aynu dhegaysanno waxyaabaha aynu maqlayno. waqtigu aad lumiso ayaa ka daran dhimashada, waayo dhimashadu waxay kaa fogaynaysaa dunida oo kaliya, balse waqtigu aad lumisaa wuxuu kaa fogaynayaa eebba subxaanahu wa tacaala. waqtiga ha ku lumin sharaxaad dheeriya. dadku waxay dhagaystaan waxa ay rabaan inay maqlaan dhagahoodu. ilaa aynu awoodno inaynu maamulno waqtiga, ma maamuli karno wax kale. waxa ay tahay inaynu qabanno waa go'aanka gaarista waxaynu samayn lahayn waqtigu eebba nagu manaystay. haddii aad nolosha jeceshahay waqtiga ha lumin, waayo waqtigu waa waxay noloshu ibni'aadamku ku dhisan tahay.